iyadoo dalka Soomaaliyeed standard tacliimeed oo isku mid uusan lahayn iyadoo dadka Soomaaliyeed waxa loo dhigay aan shaki ka qabno waxaad maalin dhow idaacadaha ka maqlayseen nin jaamacadaha Muqdisho ka dhigayay oo la yiri wuxuu ahaan jiray al-shabaabka madaxdiisa waxa noocaas annaga wax kuma darsan karno waxaan u sheegaynaa dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed Puntland iyadoo dawladda Soomaaliyeed jiran ay ardaydu ka graduate garan jirtay jaamacadaha dhigan jireen marka yaana lagu buuq lagu furin shahaado xamar laga bixiyo mustaqbalkiina kuma xirna taas ay inii sheegaya anana inii garanti garaynayna shahaadooyinka hadda xamar waa laga bixiyaa la yiraahdaa ee suuqyada bakaaraha xamar lagu gado waa ceeb in dawlad qof mas'uul ah inuu waxaas oo kale meel la yimaado waan ka xishoonnay inaan ka jawaabno waana ka digaynaa dadkeena in lagu jaha wareeriyo dadka noocaas oo kale in loo jawaabana ma mudna xaqiiqada marka loo hadlo marka waxaan rajaynayaa in dadka dhalinyarada oo aan si fiican u garanayo badankooda in ay dadaal badan leeyihiin jaamacadaha ay tageen kaalin weyn ka qaateen inay walwal ka qabin mustaqbalka tacliintooda iyo mustaqbalka ayahooda inta dadkooda iyo dalkooda iyo dawladooda ay u joogto taas aan ballan qaadaya insha Allah aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh